والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدوميها قلها وكيلة سيرك دليرة عيارها قدوميها قبلك ماير في المجال تليها قيبة البوليسكا سراكيشة كلا إذا ماذا سراكيشة كسعتها وزارة دليرة عيارها بعد الصحافة دليرة عيارتوجا guudahaan iyo gaar ahaan kuwa gobolka Sool dhamaantiin salaam alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh. aad iyo aad bay sharaf weyn inoogu tahay inaynu maanta garoonkii ciyaaraha ee gobolka Sool magaalada Laascaanood ee Cabdi Bile aynu maxaan ku dhahday aynu joogno oo qaybtiisii u horeysay ee rooga dhigistiisina ay imka taalo laakiin quruxda badan leh aynu taaganahay qaybtii labaad ee balaadhinta garoonka ay imika maanta inoo bilaabantay oo aynu dhagax dhignay sida wasiirka ciyaaruhu uu sheegay garoonkan waa garoonka u horeeya ee Somaliland maanta laga bilaabayo barnaamijkiisii balaadhinta ka labaad ee qorshaysanina waa ka gobolka Sool saxanle gobolka Sanaag Ceerigaabo dhammaantoodba waxaan ku dhahday waa goboladii bariga sidii madaxdii hore ay u sheegtay barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye ay qayb weyn ka ahayd in la balaadhiyo in aad loogu dadaalo barnaamijyada horumarinta dhalinyarada oo ay kow ka noqonayso ciyaaro marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aad iyo aadna ugu bogaadinayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha oo intii imika uu xilkan hayay qaybo fara badan iyo dadaal fara badan ka muujiyay barnaamijka horumarinta ciyaaraha waa la socotaan Hargeysa waxa lagu qabtay tartan weyn oo caalami ah oo orodyahanno caalami ah ay ka yimaadeen oo ay ku jirtay ilaa orodka 42 ee marathonka ah orodyahannadeennuna ay qayb weyn ka qaateen waliba ay qaateen orodkii 5000 ahaa waxa qaatay maxaan ku dhahday iyo 10000 waxa qaatay dhalinyaradeenii orodyahanada ahaa waliba ka tirsanaa kooxda orodyahanka ee booliska ka tirsanaa taasi waxay suuro gelinaysaa in aynu ka qayb gali karno tartamada ciyaaraha oo aan iyagu inta badan lagu aqoonsan yahay iyo siyaasadii aan ku xidhnayna inta badan ku xidhan facilitieskagu sida uu ka caalamka ula jaan qaadayo nabadgelyada dadka ku imanaysa in ay ka jaan qaadayso marka haddii tartankii nimanka orodyahanada caalamiga ay ka soo qayb galeen ninkii maalintii marathonka qaatay 3 tartan oo marathonka ah adduunyada abu ka qayb galay iyo kooxdii maxaan ku dhahday isaga la socotay doo laga yaabaa marka inay noo suuro gasho ka ku xiga inaynu ku qabanno magaalada Laascaanood gobolka Sool inaan ku qabanno wasiirku wuxuu kaloo sii iclaamiyay in maxaan ku dhahday tartanka ciyaaraha ee sanadka soo socda 2019 in lagu qabto magaalada Laascaanood in lagu qabto sharaf weyn bay u tahay haddii la yiraahdo gobolka iyo degmadaba in tartankeena ciyaaraha la isugu keeno ciyaaryahanka magaalada Laascaanood laba shay baa markaa laga maarmaana in meeyarka iyo banasaabka iyo guud biliiska iyo guud ahaan deegaanka iyo bulshada gobolka ku nool iyo Laascaanood inay isu diyaariyaan tartanka lagu qaban doono inay isu diyaariyaan soo dhaweynta dadka inay isu diyaariyaan dejinta inay isu diyaariyaan ciyaaraha daawashadooda inay isu diyaariyaan inaanay gobolka Laascaanood oo qora shacabka u tumin xaafad walba kuwa lagu dejiyaa ay tirsato oo ay soo dhaweyso ay isu diyaariyaan inay dadka qalbigooda hantaan in gobolka iyo magaaladu dad arrinka u diyaaray inay noqdaan waa gobol aad u xamaasad wanaagsan taariikh hore fara badan leh waxa aan rajaynayaa hal shay haddii laga taxadiro inay dadku markaa Laascaanood u soo hiloobayaan oo arrinkaasina ay tahay arrinka nabadgelyada hadda jeer marka goboladeenan bariga la joogo gudoomiyaha wakiilada iyo aniga iyo wasiirkuba gobolada barigaanu ka tirsanahay
هذه شروح إنه نحن قلبات با وحلا سيا قلبات با عين كان قلبات با سيدنا قلبات با سيدا قول هذا قلبات كل شيء بينديريهن هل كشيء ينديريهن وين بتقليه عالم كي الدنيا شرع هذا إسلام يا إيمانك يأمنك شرع هذا وحي الرئيسي أمنك له الرئيسي ما الآن أمن تشرين بني آدمك تشوقا كمان نولال بركة كمان نولا marka waxaan doonaynaa inaynu arrinta u diyaar garowno garoonkan waa garoonka ugu horeeya la balaadhinayo gidaaradan waa la duminayaa xagga dambe in badan baa masaafo badan baa dib loo rarayaa halkan waxa laga dhigayaa qolada wasaaraddu barnaamij ay u bixiyeen sports village xaafadda cayaaraha oo dhammaan garoomadii kala duwanaa ee cayaaraha oo dhamay ay lagu wada samaynayo basketkii lagu samaynayo volley-gii lagu samaynayo maxaan ku dhahay meelihii biraha lagu qaadayo lagu samaynayo orodkii maxaan ku dhahdaa lagu samaynayo garoonkan waxa loo dhisayaa si caalami ah meelihii ciyaartooygu maxaan ku dhahdaayay ay ciyaarta ku nasanaysay meelahay ka soo galeysay oo dhan baa la samaynayaa waa garoonkii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliland barnaamij noocaas imika laga hirgelinayo shirkadana waxaan rajaynaynaa inay meel qurux badan oo la yiraahdo shirkadan كالي كعرقابنا دسا كدورنا دسا كمل هبلاينا دسا إنها اعتماده قدراسك يد اسمها أنا dadka gobolka degan bay shirkaduna ka mid tahay oo xaq bay u leeyihiin inaan cid kale dibadda looga keenin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba wasiirka arrimaha cayaaraha iyo dhalinyarada iyo saraakiishiisa wasaaradda iyo la shaqeynaya dadaalka faraha badan ay arrinta ka wadaan dhalinyaradana waxaan leenahay aad iyo aad loogu dadaalo boos mire waa runtii waxa lagu tartan qabyaalada lagu tartami maayo reer hebel baa isdilayana lagu tartami maayo tacliin la'aantana lagu tartami maayo waxa lagu tartamayaa adduunyadan maanta aynu joogno magaalo waliba inay ku faanto magaalada ugu nadiifsan magaalada ugu nabadgelyada wanaagsan magaalada ugu design wanaagsan magaalada ugu tacliinta sareysa magaalada ugu iskuulada badan leh magaalada ugu nabadda badan leh ayaa lagu tartamaya dhalinyaraduna waxay ku tartamaysaa digriga koobaad baa sitaa ka labaad baa sitaa master baa sitaa PhD baa sitaa cilmi baa lagu tartamaya waxa laga yaabaa 10 sanadood dabadeed cilmigan maanta jira adduunyadu inay hore uga martayo sida hilaac ku socdaa xawaaraha hilaaca ayaa ilbaxnimadii iyo cilmigii iyo adduunyadu maanta ay ku socotaa dhalinyaradu waxaan leenahay kaasa u baahantiin inaad ku tartantaan ninka qabyaalada wadaa idinka waa wadkiina ninka dagaalka wadaa idinka waa wadkiina ninka kala qaybinta dadka wadaa waa wadkiina waxaan doonaynaa dhalinyaradu in ay muuqaal samayso dhalinyaro oo higsi taariikheed iyo aqooneed iyo tacliin leh ayaan idin message-kaasaan idin dirayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha golaha wakiilada mudane baash